بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle isagana mahadnaqina wax kasta isaga ka suurtooban mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii gartay inaan xilka culus ee qaranka muhiimadda ugu fadhiya qabto hanti dhowraha guud ee qaranka anigoo qaranka shaqooyin badan oo hore u soo qabtay oo muhiim ah iminkana xafiis muhiim ah u joogay waxaan rajaynayaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo fududayn doono xilkaas weyn ee qaranka iyo ummadda muhiimka u leh maadaama la xil saaray ummadda inta leeg inaan hantideeda ilaaliyo ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ay fududayn doona anna waxaan ballan qaadayaa intay taalkayga inaan ilaa halka u dambaysa ka shaqeeyo hantida ummadda ilaaliyo anigoo aqoontaydii hore iyo aragnimada u leeyahay xisaabaadka ee background-kayga auditing iyo xisaabaadka ka faa'iideysan doona waxaan rajaynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fududayn doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والله أنا وحنا سلاها كل ما له روان كسر شقيي ده واحد بدنا وان كسر قبته كروان وسوق قاضي وحنا سلاها مركه ورا هرتا ماشى وان دس كرايا يتعال كي جون حرجينيا قف كيلينا وحمر دس كرا لكن عيد كستوء أي خصيصه هذا إنه هي قدية أي خصيصه هذا تاي حكومة ده وحرجينيا هذا تاي دوينا به إن لا يجلس شقين ده ونص يعني وقدر إنه institution شقين عيا وهيبة دي سي يوحقبة كيسي له أنه حنكون داليا إن كسر رب الحلقة وما تشوفه وأنا صاروا standard كي audit كلوية قانية الدنيا ده لا تلعب سنكراي إن كنا بين الله سبحانه وتعالى كرجينه